سلام كبعدي حقيقة شركني أدبو مهمة أولية هي شرر بدن أو دعية هنا لهين صابتها مركان كهلا إنه ديان كي بيئة يسبدل كعملة كنت مع ده يصير عنه وأنا رغم إنه هي وواحد نلاش أولا سامين كويا رناس أدوك معلم بمركز سيتشو توح بدن أو ظهره أقوني باكوس أو كرنية نوع عملاً iyo waxaan isbedelay iyo sida way fiskan adduunku ku socdo wayaha qaarkood waxaan ka arki jiray dabayl kaskaad iyo kuusi la yiraahdaan ka naqaanay iyo mar un abaar baa dhacday iyo fatahaad baa dhacday xilliyo timaad laakiin hadda waxay noqotay wax waliba joogto isbedelku waa mid aad u degdegaya oo mar walba aad arkaysa khatar ka weyn tii hore shalay aad arkaysa inta badanna waxaa keenta waxyaalaha qaarkood haba ku yimaadeen si uu xagga Ilaahay ka timaadeen laakiin wax dadku gacmahooda ay ku geystaan laftirkooda qayb badan bay ka tahay maanta dhulkan aan ku noolahay Ilaahay nagu abuuray wax badan baa baabay waxaad wasiirku uu ka hadlayay goofafka iyo dhuxusha la jarayo iyo dhulka la banaynayo iyo kulligood waa wax saameyn ku yeelanaya cimilada maaha bariga kaliya badda gudaheedii baa waxaa ka dhacay xaaluf kale oo dhagxantii iyo wixii biyaha keenayay iyo meeshii calafku kalluunka uga baxayay iyo wixii oo dhan waa la jajabinayaa iyada lafteeda fasaad kale ka jira taasaa kulligeed markaa waxay saameyn ku yeelanaysaa noloshii iyo cuntadii iyo wax kastoo qofka bini aadankii uu noloshiisa basic u ahayd bay saameyn ku yeelanaysaa waxaan rabaa tusaalooyin yaryar inaan ka bixiyo waxyaalaha hadda cimiladu ay isbedelkeedu keentay ee annagu aanu sababta u nahay deegaankan hadda aan joogno maalan hadda gobolkan Jubbada Hoose wuxuu ahaa dhulka roobabka ugu badan ay ka da'aan waqtiyada qaarkood waxaan garanaynaa roobka dayrta ah iyo biyuhu intay la ekaadaan iyo inta uu dhulka sida loo socon jiray culayska lahayd ha ahaato maqaadiir rabbi laakiin dhulkaasi duur buu ahaa waxaadna ogaataa mar walba oo geedaha iyo dhulku geographical sidii u ahaa aan la xaalufinin xataa roobka iyo deitaankiisa iyo wax badan baa sidii u ahaa u waxaysmay jidadka la mari jiray jidad tirsan bay ahaayeen waxaa la soo bilaabay lixdamaadkii dhuxul in lagu xaalufiyo oo dhowr ciladood ay keentay waa mida waxay noqotay dhulkii in geedihii waaweynaa oo dhan ay baaba'aan oo la tirtiro waa midda labaad ee geedka in la goynayo keliya maaha inta la banayn iyo inta waddo loo banaynayo inta dhuxul loo banaynayo intaasoo dhanna dhul bannaan baa laga dhigaya dabaysha kacda jiilaalkii markaa maxay keeni karaysaa waxay keenaysaa meel geedo yaryar ku yaaleen iyo kuwo ay ka soo baxayeen kulligood inay carradii aasto intaasi markay timaado roobkiina uu yaraado waxa yaallaa waa maxay markaa waa jiilaal iyo abaar waxaad garanaysaan dhulkani dooxooyin buu lahaa biyuhu fadhiistaan oo dhasheega oo meelahaasi markaa roobku markuu dao biyuhu fadhiistidkaasi markay sii qaadayaan beer laga abuurto xooluhu ay ka cabbaan dadku ay ka cabbaan maanta ma jiraan biyaha waliba say u socdaan toos meeshay uga soo baxaan meesha ugu dambaysa roob ka da-ay biyuhu jeexdimay samaysteen webigay ku shubayaan webiguna baddu ku shubayaa sababtoo wixii dhexe ee biyaha ama qaban jiray ama celin jiray ama dooxooyinka kulligood marka xoog ka badanna lagu furo geedihiina la baabi'iyo waddooyinkiina la badiyo jeexjeexiina la waxeeyo maxaa oolaya macnaheedu waxa weeyaan waxaa meesha ka baxaya markaa wixii shalay dabeecadani ay ahayd oo geographically systemka iyo deegaankani wixii ahaay oo dhani kulli isbedel baa ku imanaya waanu sheegnay laamaha amniga iyo wasaaradda laftirkeeda iyo in laga wada shaqeeyo at least bal in khasaare iyagana loo geysto oo weerar intii lagu qaado godadka laga gubo oo iyaga la xidhxidho oo waxaa kaaga daran xooluu tabcanaya meesha dhuxusha laftirkeeda in yar oo ari iyo waxbuu keensan saca iyo xataa meelay u daaqaan ma hayaan
marka waxa ugu badan ee anaga deegaanka nagu dhacaya waxa aan anagu gacanteeda kulayn waliba gobolkan hadda wasaaradda biyuhu maalin waxay ka hadlaysaa biyo dhaamin haddana tii masiibooyinka hadlaysa waxay leedahay fatahaad waxaan ku jiraynaa un inta u dhaxaysa fatahaado iyo abaaro bimacnaa labadaas waxaa u dhexeeyay wixii dhaqanka uu ahaa ee jiri lahaa ee lagu badbaadin lahaa bay-adan iyo environmentigan lagu xayn lahaa baa meesha ka baxay marka inaan labadaa u dhaxayno deegaankan anagoo joognaay waa wax nasiib darra waxaan rabaa hay-adaha dowladda iyo saaxiibada beesha caalamka iyo cid kastoo nagala shaqeynaysaa war deegaanadani in biyahanagiina ay webiga badda ku khasaaraan oo aada arkayso 30 kilomitr gugii biyaha baddu biyahan macaan way fudud yihiin kor bay sabeynayaan meesha biyaha cusbadii ay hoos joogayaan 30 kilomitr haddaad doonta qaadato biyaha kore waad ka cabi kartaa badda sababtoo biyahan macaan yaa koreynaya way khafiif biyaha badda hooseynaya ilaa tartiib bay isugu sii qasmayaan in marka ay biyihii istaagi waayaan ay saa ku baxaan oo jiilaalkii ay noqoto gugii aan fatahaadda ku jirno 2 bilood 3 bilood kadibna la yidhaha abaar baa taagan oo biyo dhaamis waxaan weydiisanana dadka laftirkooda ay naga caajisayaan markaan labadaa u dawarsanayno biyo dhaamis iyo fatahaad waa gurmad joogto ah oo dadkanagii kulligood xoolihii iyo wixii ay ka soo wada tageen bal markaa in xataa laga fekero mustaqbalka xoolaha laftirkooda sida weji ka bedelan haddaan hadda xoolaheenan daalaya ee soconaya ee wareegaya intaan calaf u samayno meelo yaryar oo loo abuuro cawskan oo hadda waa la ilbaxay oo booyadaha loo dhaamiyaa jiilaalkii intii daaqsi la geeyay sababtoo dhulkii wuxuu noqday kulli wada sabo iyo bannaan iyo ceelkii agtiisii meel ay xoolo daaqaan male markaasay noqotay haddii meel daaqi iyo biyihii aad inay u kala fogaadaan sababtoo dhulkii biyaha u dhowaa waa xaaluf waa sabo ama dow buu noqday taa macnaheedu waxay keentay markaa in la yidhaahdo meel heblaha daaqsin leh oo de ceello kama qodno warna kama qodno see la yeelaya ha la geeyo booyadaha loo dhaamiyo waxaa iyadana kasii cajiib badan biyaha laftirkoodii maalin dhow aan waayi doonaba wasaaradda biyaha daraasad hadda ay ka hadlayso la sameynayay 3 kilomitr ba waxaa ka qodan 18 ceel waa dhoble oo kale 3 kilomitr 18 ceel oo hal biyo oo meel ku jira kulli ay wada durayaan biyahaas intee leeg bay meesha ku jirayaan dadka isticmaalaya oo dhanna aada buu u yaryahay 2 ceel baa ku filan markaasaa intaasoo ceel laga qodaya ceel walba si baraybada qof u qodanaya sidaa loo leeyahay dhib aanaan anagu isu geysanin naguma dhacayo wixiina hadday noqoto mashaariic wax lagu wada raadsanayo oo ka war baan hayaale oo wartii kale ay 2 kilomitr jirto tan kale ay u jirto ceelkii uu jiro ay noqoto projecti qofkani wuxuu ka faa'iidaya ay tahay waxa uga soo hadha markaa uu qodayo laakiin uuna ka xisaabtamaynin waxaan bay-ada iyo nolosha mujtamaca iyo mustaqbalka waxay ku keenaysa aan laga fikerayn hay-adaha iyo wasaaradaha ay khusayso kulligood waxaan leenahay waraha badan iyo ceelasha badan iyo waxaan idinku aada gacantiina fitanta ku abuureysaan iyo dhibaatada dib intii looga fekero bal baahida meeshay tahay aan dib ha loogu noqdo waad ogtihiin hadda ka hor baan ka hadlay hadda xilligii warahan deegaankan hadda aan joogno 30 kilomitr labada warood wartan dhexdeeda iyo waraha kale 50 kilomitr bay isu jirayeen ceelashuna 30 kilomitr bay isu jirayeen maanta markaa 18 ceel markay 3 kilomitr ku taalla intee leeg bay isu jiraan biyaha ay isticmaalayaan ciriiriga ay gelinayaan matoorada la shidayaa dhibkay geysanayaan oo ay hawada oxygenka xataa ku sameyn baladu isku wada dara intaasoo dhan haddii la yidhaahdo waa la wartani inta la oodayo kanaalkeedu intuu noqonayo tii kale inta uu kasoo jeexmayo jiilaalkii xoolaha cabayaa sabadu intay noqonayso tii kale daaqsintu xaggee noqonaysa waxaasoo dhan waa waxaan anagu gacantanada ku samaysanayno waan soo dhaweynayaa shirkan waxaan rajeynayaa natiijada ka soo baxdaa inay noqoto bal mid dadka lagu wacyigelinayo dadka in la wacyigeliyo oo loo sheego waxaan aan ka calaacalayna iyo dhibaatadan taallaa waxaan anagu samaynayno oo kasbanayna inay tahay waa nasiib darro soomaalida haysata
waana wax ay keenayso inaan siyaasad cad laga yeelan waayo dhibaatada dhacaysa iyo waxa noo muuqda sida weyn waan idiin rajaynayaa wasaaradda iyo cidda kale kala shaqeynaysaba hawshaas siday tahay in loo gudagalo bal aan laga fekerin maxaa inaga soo gelaya iyo project noocaasa ma laga heli karaa iyo maxaa dhaqaale in laga hadlo waxa dhabta ah basiga u ah isbeddelkan cimilada iyo nolosha dadka waxa ku xidhan in iyada si toosan loo taabto